kulanti wacan daawadayaal waraysigan waxaynu ku eegaynaa haddii allaha uu dira uu ka raali noqdo oo nala jooga stuudiyaha koowaad telefishinka dalsan xaruntiisa muqdisho xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee Fasaj Maxamed Ibrahim Macalimow oo ka mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarkii galabta lagu qaaday hotelka Eled xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Macalimow marka hore salaan iyo soo dhaweyn kadib waa alla mahadi adigoo caafimaad qaba inaad caawna la joogto kana mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarkii galabta. marka hore sidee wax ahaayeen xilliga intuusan qaraxa dhicin ka hor? cabdi waxiid aad iyo aad u mahadsan tahay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. intii dhimatay ilaahu naxariiso. kulley siday wax u dhaceen qof walba meeshii uu joogo unbay tiisa ku saamayso tiisu ka warrami karaya. aniga waxaan maaragtay wada joognay allahu naxariistay cabdirasaaq cabdi cabdullaahi oo nin saaxiibkay ah oo gurigiisa maaragtay inta isoo wacay isagoo wasaaradda warfaafinta jooga gurigeyga iigu yimid oo iga soo qaado gaarigiisa igu soo qaaday ayaan isla fadhinay oo sheekaysanaynay. markii aan meesha tagnay xataa qaxwadiina loo dalbay intaan naloo keenin yaa waxaan aragnay wax uun holac dusheena maraya. waxaan xigay qarax weyn oo dhagajibis ah. waxaa maaragtay dhacay qiiq iyo uura cirka isqabsaday qaylada iyo isku dhacaan maaragtay aniga asaga kursi yar oo khafiifa dhexdeena yaallo maaragtay kursigii meel uu ka baxay ma arkin. anigii isaga kursigan yaa isku dhacay markuu isku dhacnay oo aan maaragtay yaan uu istaagay telefoonkiisa oo meeshii loo qaatay anna telefoonadii gacanta ku qabsaday markaasaan u booday marka gacantii aan maaragtay qabtay waxaan rabay inaan meel u wada cararno marka uu iga fara baxsaday. ilaahay markiis maaragtay wuxuu u cararay dhinacii ay xabadu ka socoto xoog gale ka socotay qadarta meesha ku taalo qofka maaragtay marka miidaanta ka lumayso markay qofka waqtigiisa uu dhamaado qof celin karaana ma jiro meeshii uu maaragtay u cararay xabada maaragtay wadnaha kaga dhacday laakiin anaga haba yaraatay qaraxna soo gaaray ma jirin meel furan oo badda maaragtay ku beegan oo aan galbihii qaar fadhiisan jirnay anigii asaga iyo asxaab kale ayaan meeshaan fadhinay marka ilaaha u naxariisto kulley dadka Soomaaliyeed ee maanta dhintay oo kamid ahaa Cabdirasaaq. waxaan u rajaynayaa maaragtay qoyskii qaraabadii uu ka geeriyooday ilaahay inuu samir iimaan ka siiyo intii taqaanay saaxiibada nin wuxuu ahaa aad macruuf u ah dadka dhan wada yaqaanaan maaragtay saaxiiba dadka dhan bulshaawi ah. wuxuuna qabay salaadii maaragtay weysadii salaadii casirku ku tukaday ana hubo oo wila joogay marka ninkaas maaragtay ilaahay waxaan u rajaynayaa inuu jannadii maaragtay ka waraabiyo. marka waa gartay Macalimow adiga marka sidee ku soo badbaaday? horta badbaadada ilaaha leh qofna maaragtay qofka markuu badbaado qofka daantiisa ka wax ka dhineen waa iska badbaadaya. dad badan oo Soomaaliyeed badbaaday laakiin maaragtay maadaama aniga horay waarinimo badan oo qaraxyo badan aan joogay markii wax dhaceen horay kama cararin waxaan go'aansaday horta inaan ogaado meesha ay wax iga jiraan. markii aan arkay xabada xoogeeda meesha ay ka socotay la qaraxan waaba ka fakaday qaraxa jugtiisana ma soo gaarin hawadiisi iyo buuqii iyo ciyaaryaamadiisa uma soo gaartay. marka waxaan go'aansaday inaan maaragtay istaago hubiyo meeshii maaragtay wax ka socdeen meeshii xabado badan socday aad mararka qaar kood xataa ku soo dhacay iyo meel walba ku dhacay marka ma qiyaasi karin meesha xabada xataa ilaalada iyo cid walba banaanka joogtay askari walba banaanka taagan xabad iska ridaay. marka xaaladahaas oo kale waa xaaladaha aadka u qariban oo dadka inta badan maaragtay aan la kala garan karin oo aadka loo dhinto. marka inaan wax hubsadaan maaragtay sameeyay markaan arkay meeshii maaragtay ay wax ka jireen xabaduhu ay u yaraayeen inta isgaabiyaan maaragtay u cararay. waxaan ka booday gidaarka dhinaca badda xeebtaan u booday markaan booday oo dhulka ku dhacay haddana isla markii maanan cararin waxaan sameeyay inaan maaragtay xoogaa haddana hubiyo meeshii jirto. kadibna maaragtay badda dhinaceeda ayaan maaragtay u cararay. meeshaasaa maaragtay dad kale ayana soo cararay aan maaragtay isku lug darsanay dee ilaaha naga badbaadiya laakiin wax meesha ka dhacay wax sawir iyo sheeko lagu sheegi kara maaha. dhagihii oo dhan dadka ka owday qof kastana meeshii uu joogay dadka qaarkiis dadaa maaragtay waxaad arkaysaa waxyaabaha la yaab kale la yaab badda lafteeda markaan u dhacay oo dhinacii aan u cararay dad baa inta halkan ka cararaay oo dhinacan u cararaay qaarna halkaas ka soo cararayaan dad xataa badda iyo banaankeeda joogay marka waxaa lumaya qof kasta maaragtay waxaa ka lumaya controlkii ma taqaanid waxa dhacay qaraxu maaragtay qofka dadka qaarkiis aad ugu cuslaa. marka laakiin alxamdulillah maaragtay sida dadka inta meesha joogtay badankeed ay u badbaaday waxaan leeyahay maaragtay intii ku dhaawacantay ilaahay maaragtay ha u boogadhayo inta dhimatayna Allah u naxariisto laakiin dad badan meesha joogay. waa gartay Macalimow marka adiga ma aragtay ragga dagaalamayay oo weerarka soo qaaday
oo ma xaqiijin kartaa tira ahaantooda xasuus? wallaahi anigu horta sideedaba markay wax dhacaan qofka banaanka jooga maaragtay unbaa wax ogaan kara iyo qofka u dhow maahee qofka gudaha ku jira wuxuu ay saameeyeen inta badan ma ogaan karo. marka ay wax dhacaan inta badan qofka gudaha jooga wax ma ogaan karo. waa adag tahay sababtoo ah naftaadiyaa badbaadinaysaa, cararaa galaysaa. marka dabcan dad rasaas xoog lahaa dhacaysay, rasaasna markay dhacayso waxa waaye dadaa soo galayay, askartana caabinay samaynaysay, jahawareer badanaa jiray, qiiq badan. mararka qaarkood xataa waa marka dhibaatada badan dadka inta badan qaaraa maaragtay ku faaya, qaaraa boodaya, qaaraa maaragtay iska hor imaanaya. marka jahawareer xoog lahaa imaanaya marka qarax u dhaca, qof kasta miidaanta ka lumaysa. ma garan kartid marka meesha laga imaanayo meesha, laakiin waxaa qiyaasi kartaa xabaduhu meesha ay maaragtay xoogga ku leeyihiin. ilaan qaraxii hore waa dhacay. mararka qaarkoodna maaragtay qaraxyo waxaa dhici kara inay qaar secondary oo marka labaad qaraxyo kale inay dhacaan suuragal, xataa inaad u fiirsato meesha aad maaragtay ku baxayso iyo wixii kaa jira. marka lama ogaan karo, qof maaragtay damiir lama ogaan karo, laakiin meesha waxa ka dhacay waxay ahaayeen ilaa hadda dhagahayga maaragtay si wanaagsan wax u maqlaynin oo qof walbaa saameeyey. waa gartay. marxuumkan geeriyooday saaxiibkaaga ahaa allahu naxariista cabdirasaaq, waa xilli aad wada fadhiseen oo si qurux badan sheeko idin wada socotay. marka isagu qaraxu waxyeelo kama soo gaarin? runtii cabdirasaaq galab walba horta inta badan dad badan aan yaqaanay, saaxiibana la ahaa, meeshaan fadhiisan jirnay. meesha maaragtay galabtii marka uu ka soo rawaxa, hadda markii uu soo wacay wasaaradda warfaafintuu joogay, anuu gurigeyga joogo igu yimid, waa isoo raacnay, halkaasaa nimid. telefono dad kula hadlaayay, waxuu la hadlay wariye Faysal Muuse oo Turkiga joogo, la hadlay intaan joogo, agaasime Cadaalo oo wasaaradda warfaafinta agaasimaheeda ah la hadlay. wuxuu aniga ii dhiibay, la hadlay, telefoon kula hadlaayay marka u dambeysay senator Ayuub oo ka tirsanaa oo aad ula kaftamay. markaas aniga ii dhiibay telefoonka aan ku hadlay, maaragtay markaan iska dhigay telefoonkii senatorka aniga aan la kaftamay oo kala siyaasadda iyo waxaasi kala hadlay, yaa markaan xoogaaba joognayba waxan ay dhaceen. marka nin iska bulshaawi oo xiriir badan oo dadka dhan ay yaqaanaan uu ahaa. mararka qaarkood xataa anaga maaragtay aad nooga firfircoon, qof walba saaxiib la ah, qof walba ayuu maaragtay saaxiib la ahaa Cabdirasaaq. marka kulley tiisa dhamaatay maaragtay Ilaahu naxariisto, laakiin waxay ahayd dhacdo xanuun. waa qiyaasi kartaa xanuunka ay yeelan karto qof hadda aad isla socoteen, kaftamayseen, maaragtay gurigaaga kaa soo qaaday, kula socday, maaragtay saaxiibkaa galab walba ku raaci jiray. habeenkii inta badan anigu maaragtay isagaan habeenadan maaragtay isugu badnayn inta badan markaan meelaha joogno. marka waa dadka isku badanaan maaragtay aanan hayn. marka dee qof walba waqti uu leeyahay, laakiin aad iyo aada maaragtay waxay ii gelisay gariir badan iyo tiiraanyo iyo murugo. waa aamini kari waaye ilaa aan maaragtay isbitaalka intaan tago meydkiisa aan dul tago, waa aamini kari waaye waxaan maaragtay inay run yihiin. ilaa maaragtay dadku inkastoo isla markiiba dadka qaarkiis ay sheegeen, anigu ma arkin dhaawacii, ilaan dhinac kale oo jiha kale ku cararay, laakiin isagoo soo baxay isagoo dhaawac oo hallay qaaday yiri, dadaa aqoonsaday, waa la soo qaaday isbitaalka uma la keenay. nasiib maaragtay daro isla markiiba maaragtay wuu qurbaxay sababtoo ah dhiigga gudaha uga socday. anigu laakiin markii dambe waan ka daba imid isbitaalka aan imid oo la ii sheegay oo aan idhehi ka saaray, waa aamini kari waayay ninkii hadda aan kaftamaynay oo aan wada joogno walaalka aan ahayn in maaragtay uu meeshaas ku qurbaxay. laakiin kulley qadarta ayaa wax walba ka weyn, maaragtay kullu nafsin daa'iqatul mawt. waa gartay macallimo, inta dhimatay allahu naxariisto 4 qarax ayaad ka badbaaday, ilaah ayaa wax badbaadiyo. kii Liido seafood oo kale qaraxii ka dhacay, Maka al-Mukarrama, Jaziira iyo kii galabta. marka waa qaraxaagii afraad oo aad ka badbaado, alla xaggiisa ayaad ka socotaa. marka miyaysan jirin wax taxadir ah maadaama qaraxyadan aad u soo joogtay? wallaahi horta wax laga taxadiri kara male, magaalada aan joognaa maaragtay dabeecaddeeda iyo dhaqankeeda sidaas ah. sax waaye, meelaha annaga aan inta badan wariyaasha aan tagno waa meelaha dadka eliidka ee maaragtay ay tagaan. meelahaasna inta badan waxay bartilmaameed u yihiin qaraxyada. marka dad badana maaragtay nala ku taliyo maaragtay inaan meelahaas ka joojino oo ah weliba tala fiican. laakiin haddana magaaladii markaad joogto ayaan joogto is leedahay niyo xaaladda waa caadi noqotay, maaragtay iska tag, yaa qadartii waxay dhacayaan. marka waxaan ku talagalay waxaan sii ogaa ma laha. aniga ilaa 3 jeer oo sax oo horaan ku dhaawacmay qaraxyo. midkii UNDP 2013 ninkii isqarxiyey oo qaraxa geystay ugu soo dhacay gaarigeygii hilibkiisii oo maaragtay gaarigii dhan isku yaraaday. anoo maaragtay meeshii laga soo bixiyay niman booliis ah soo qaaday oo maaragtay isbitaal
madiina la keenay dhaawac garabkaas un bisaa i gaaray laakiin marka la fiiriyo gaarigayga iyo wixii meesha yaalay waa la yaabay haddana waxaa jiray seafood dhaawacyahan wajiyadan hadda qaraxa iga yaallo dhan waxa waaye waa seafood dadkii maaragtay dhibaatada ku gaartay 40 qofood ku dhimatay alxamdulilah ilaahay iga badbaadiyay laakiin wuxuu ahaa maaragtay mid tii igu cusleed ay soo martay maaragtay oo meel kasta wejigayga wuxuu noqday maaragtay mid bedelmay qof aqoonsan kara ma jirin meeshaan iska oolay waqti aad u dheer oo xabado igu dul socdeen anoo weliba indhaha aan waxba ka arkaynin haddana waxaa ii xigay qaraxii ee u dambeeyey ee ahaa maka almukarama oo gacanta maaragtay dhaawac iga soo gaaro hadda social media aad loo wareejinayo laakiin alxamdulilah qaraxan inkastoo saaxiibkay uu ku dhintay inkastoo dad badan oo Soomaaliya ku dhinteen laakiin aniga haba yaraatee wax isoo gaaray xataa xanqariifo ma jiraan meeshaas jirow iyo markaan meel aad ka boodayso iyo markaad maaragtay qof cuslaaday aad tahay maaragtay waa laga yaabaa inay ku saamayso waxyaabahaas laakiin wax la sheegi kara ma laha haba yaraatee wax dhaawaca oo isoo gaaray ma jiro alxamdulilah laakiin maaragtay waxaan aad uga xumahay ninkaas saaxiibka oo meesha ku weynay iyo ummadii Soomaaliyeed meesha ku dhimatay والله horta ninkaan nin maaragtay ummadda Soomaaliyeed wada taqaan oo ahaa nin dhalinyaro ah wasaaradda warfaafinta agaasimo ka ah shaqooyin badan soo qabtay haddana aad shaqada u jecel wuxuu ahaa galabtii markuu shaqada soo dhamaysto ilaa 4 ku gaari jiray marka qaarkood ilaa 3 barka marka 3 barka markuu soo dhamaysto soo rawax shaqada dadka ugu horeeyo soo waco maaragtay xagee joogtaan uu dhaho ayaan kamid ahaa saaxiibada la ahaa waxa kamid ah aniga iyo nin yiraahdo Qadar Xaaji Cabdi Wali iyo waxa inta badan u tagnaa gudoomiye Cadagaawo saaxiib noo ahaa oday noo ahaa inta badan maaragtay aan meelaha isla tagtagi jirnay habeenadii inta badan aan isku badnayn markaan meelaha maaragtay aan tagayno marka de waxa xagra kartaa qof sidaas aad isugu dhaweydeen daris ahaydeen saaxiib ahaydeen muddo aad maaragtay dheer istaqiineen saacado yar ku horjoogay wax maaragtay la aamini karo maaragtay ma aad rumaysan karto ma aha laakiin haddana waa inaad qadarta ku qanacdaa aamintaa maaragtay waxaan inay yihiin wax xagga Rabbi ka yimid qof kastana uu maaragtay uu leeyahay waqtigaasna uu dhimanayo laakiin runtii qof sawir ka bixin kara iyo haba yaraatay wax maaragtay lama awaali kara wax meesha ka dhacay ma ahayn dhagaha maaragtay qof kasta oo dumay wax kasta oo maaragtay qof uu ku argagaxo wadnaha waxaad moodaa inuu sidii durbaanka oo kale ii garaacay oo aad leedahay xataa mararka qaarkood dadka qaarkiisu iska istaageen ma dhaqaaqi karin naxtin awgeed markaasoo kale waa maaragtay dadka qaarkeeda xanuunada qaba iyo dadka maaragtay waaba ugu sii daran tahayba laakiin alxamdulilah ilaaha maaragtay dadka meeshaas naga soo badbaadiyey wax hadda maaragtay aniga shakhsi ahaan igu gaarayna ma jiro laakiin runtii waxay ahayd dhaxda xanuun badan oo maaragtay dad badan oo Soomaaliyeed maaragtay ay ku tageen anigana maaragtay kamid ah waxyaabihii maaragtay ugu xumaa intaan soo maray marka waxaan rajaynayaa markan inuu ilaahay mar dambe maaragtay meel qarax ay joojinin intaasaan ilaahay ka baryaa ilaahay uu jecel yahay sababtoo ah intan maaragtay Soomaaliyeed meelaha qaarkood 40 qofood ku dhimatay ilaahay badbaadiyay marka aniga caasi ah maaha ilaahay maaragtay ima necba waxaan rajaynayaa in ilaahay iga dhigo qofkii maaragtay u noqda dambi dhaaf weydiista ee ku dhinta maaragtay isagoo maaragtay amal cibaado suuban ku dhex jira waa gartay inkastoo galab ay ahayd xilliga qaraxa dhacayay oo hotelkuna xilliyadaas oo kale uu aad u camiran yahay maadaama adigana aad ka mid ahayd dadkii qaraxa markii uu dhacay kadib u suura gashay inuu bannaanka usoo baxo ma aragtay dad dhaawaca ama dad dhintay oo adiga indhahaagu aad saartay iyaho markii hore aan cararay horta wax ma ogaan karin waa cararay oo maaragtay anaaba badbaado ku jira waxaan ogaan karay ma jirin laakiin markii aan baxay oo aan ogaaday inaan nabad qaban bannaanka u baxay yaan maaragtay nin xildhibaan hore aan wada soconay Caraale waxaan ku yiri ninkii nolol ii geeri maayo telefonkiisana maaragtay ma qabanayo marka inaan hubiyaan rabaa markaasaan inta baxayaan dad maaragtay soo adeejiyay u soo dhawaaday markaasaan waxaan arkayay meeshii laga soo bixinayo dad maaragtay dhaawacmay iyo dad maaragtay dhintay intuba maaragtay laga soo bixinayo marka dadka meesha ku dhintay intuba way ka badnaayeen sida aniga aan maaragtay aaminsanahay laakiin dad badan oo Soomaaliyeed ku dhaawacmay wax maaragtay aad marka ogaan karto iyo maaragtay sida ay u socdaan qof ogaan kara haba yaraatee ma jiro waa hagaag daawadayaal maxamed ibraahim macalimo xogeeyaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Fasoj ayuu kaasi ahaa oo ka badbaaday qaraxii maanta ka dhacay hotelka Elad ee magaalada Muqdisho aad buu u mahadsan yahay maxamed ibraahim macalimo oo naga ajiibay waraysigan isagoo dhacdii iyo sidii wax u dhaceen noo sharaxayay